kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa isku dayi doonta inay markeedii ugu horeysay taariikhda ku guuleysato tartanka Champions League isla markaana ay hanato 3 koobab ah marka ay caawa finalka UEFA Champions League kula ciyaarayaan Inter Milan garoonka Atatürk Olympic Stadium ee dhaca magaalada Istanbul ee dalka Turkiga marka ay saacadu tahay 10 habeenimo xilliga Geeska Afrika. kooxda uu hogaamiye tababare Pep Guardiola ee Manchester City ayaa horey ugu soo guuleysatay horyaalka Premier League Ingiriiska iyo tartanka faca weyn ee FA Cup-ka waxaana ay caawa indhaha ku hayaan inay ku darsadaan koobka dhagaweynaha Champions League. waa markii labaad oo muddo 3 sano ah gudahood oo ay Manchester City gaaraysa finalka Champions League waxaana kii hore ay guuldaro kala kulmeen koobkana ka qaaday kooxda Chelsea kal ciyaareedkii 2020-2021. Manchester United waa kooxda kaliya ee Ingiriiska oo ku guuleysatay 3 koobab ah oo kala ah horyaalka Premier League Ingiriiska, tartanka FA Cup-ka iyo Champions League fasal ciyaareedkii 1998-99. Manchester City ayaa caawa ciyaari doonta finalka Champions League iyadoo ku jirta qaab ciyaareed fiican isla markaana laga soo badiyay kaliya hal kulan 26keedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay tartamada oo dhan. sidoo kalena guuldaro la'aan ah ama unbeaten ah xilli ciyaareedkan tartamada Yurub iyadoo adkaatay 7 ka mid ah 12 kulan oo ay ciyaartay tartamada Yurub. Inter Milan oo uu hogaaminayay tababare Jose Mourinho ayaa afardhamaadka ama semifinalka Champions League ku reebtay kooxdii uu horkacayay tababare Pep Guardiola ee Barcelona isla markaana ku guuleysatay 3 koobab ah sanadkii 2010. laakiin kulankan ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee kooxda Talyaanigu ay la ciyaarto naadiga Manchester City. Manchester City ayaa caawa wajahaysa kooxda 3 jeer ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee Inter Milan kuwaasoo kaalinta 3aad ka galay horyaalka Serie A kal ciyaareedkan isla markaana ku guuleystay Coppa Italia xilli ciyaareedkoodii labaad oo xiriir ah. dhanka kale kooxda Simone Inzaghi waxay haystaan weerar xoog leh oo wax ka bedeli kara kulankan finalka ah waxaana weerarkooda hogaaminaya Lautaro Martinez kaasoo dhaliyay 28 gool isla markaana sameeyay 11 caawin 58 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan. kooxda Talyaanigu sidoo kale waxay ku qalabeysan yihiin weeraryahankii hore ee kooxda Manchester City ee Edin Dzeko iyo Romelu Lukaku kaasoo aan wax kulan ah ku soo bilaaban tartamada Yurub xilli ciyaareedkan. weeraryahanka kooxda Manchester City ee Erling Haaland ayaa xilli ciyaareed cajiib ah ku qaatay kubadda cagta Ingiriiska tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Borussia Dortmund xagaagii hore. waxa uu jabiyay Haaland rikoorka gool dhalinta ee ugu sarreeya horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kadib markii uu saxiixay 36 gool. sidoo kalena 52 gool ayuu ka dhaliyay tartamada oo dhan fasal ciyaareedkan. xidiga xulka qaranka Norway ee Haaland ayaa ku guuleystay abaalmarinta ay bixiyaan ururka qorayaasha kubadda cagta Ingiriiska Football Writers Association ee loo soo gaabiyo FWA taasoo la siiyo ciyaaryahanka sanadka ugu wanaagsan. sidoo kalena waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League oo ku wada guuleysta hal xilli ciyaareed abaalmarinta xidiga ugu fiican Premier League iyo daayarka ugu fiican sanadka labadaba. bal markan aynu idin xusuusino labadan kooxood ee Manchester City iyo Inter Milan qaabkii ay ku soo gaareen finalka tartankan oo ay caawa wada ciyaarayaan. kooxda Manchester City ayaa si cajiib ah kaga soo gudubtay heerka gurubyada Champions League waxaana ay guuldaro la'aan ama unbeaten kaga soo baxeen kaalinta koowaad ee gruupka G iyagoo 5 dhibcood oo saafi ah ka sarreeyay kooxda kaalinta labaad gruupka ka gashay ee Borussia Dortmund. wareegii 16 Champions League waxay Manchester City la ciyaartay naadiga reer Jarmal ee RB Leipzig waxaana kulankaas ay muujiyeen awoodda ay ku leeyihiin gurigooda iyagoo 7 gool iyo gool ku xasuuqay Leipzig. kulankaasoo uu Haaland 5 jeer shabaqa soo taabtay waxaana celcelis ahaan ay labada lug kaga adkaadeen RB Leipzig 8 gool iyo gool. 8 dhamaadkii tartankan Champions League waxay Manchester City ku aaday kooxda uu hogaamin jiray tababarahooda haatan ee Pep Guardiola ee la yiraahdo Bayern Munich. kulankii lugta hore waxay Man City ku adkaatay 3 gool iyo eber iyadoo hal lug la sii gashay afardhamaadka tartanka waxaana lugtii labaad oo ay Jarmalka kula soo ciyaareen Bayern Munich ay ku soo galeen barbardhac gool iyo gool ah. sidaas ayayna ku xaqiijiyeen inay gaareen afardhamaadka ama semifinalka Champions League. wareegii ugu dambeeyay afardhamaadka Champions League waxa ay Man City martay tijaabo adag iyadoo madaxa loo geliyay kooxda 14 goor ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee Real Madrid. lugtii hore oo lagu ciyaaray caasimadda Spain ayaa ku soo dhamaaday barbardhac gool iyo gool ah ka hor inta aysan Manchester City garoonkeeda guul 4-0 ah kaga gaarin Los Blancos isla markaana iska xaadirin finalka tartanka oo ay caawa ciyaarayaan. dhanka kale kooxda Inter Milan ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad ee gruupka C waxayna ka dambeeyeen kooxda Bayern Munich kadib markii 2 guul darro ay kala kulmeen 6doodii kulan oo ay ciyaareen heerka gurubyada Champions League. Barcelona ayay booska labaad ka galeen oo kaalinta 3aad ee gruupka ay u rideen
kadib markii ay gool iyo eber gurigooda kaga adkaadeen isla markaana barbardhac 3-3 kula soo galeen dalka Spain. Inter Milan heerka bugbaxa ama knock-out-ka Champions League wareegii 16 iyo 8 dhamaadka waxay la kala ciyaareen kooxaha FC Porto iyo Benfica. xilli afar dhamaadka ama semifinalkana ay kula kulmeen kooxda ay isku magaalada yihiin ee AC Milan. 2 gool oo ay uga dhaliyeen 11 daqiiqo ee ugu horeeyay kulankii lugta koowaad ayay kaga adkaadeen AC Milan. kadibna kulankii lugta labaad waxay uga adkaadeen gool iyo eber, taasoo ka dhigan inay celcelis ahaan finalka Champions League kala ciyaareedkan ku soo gaareen Inter 3 gool iyo eber. Inter Milan ayaa guuldarro la soo kulantay kulankeedii furitaanka heerka gurubyada Champions League ee xilli ciyaareedkan. haddaba tan iyo markii uu qaatay tartankan magaca Champions League ee ciyaaristiisa la bilaabay xilli ciyaareedkii 1992-93 kaliya 4 kooxood ayaa gaaray finalka tartankan kadib markii ay guuldarro la kulmeen kulankooda furitaanka. waxayna kala yihiin 4taasi kooxood: AC Milan oo gaartay fasal ciyaareedkii 1994-95, Bayern Munich oo kulankii furitaanka guuldarro ku bilaabatay isla markaana final ka gaartay xilli ciyaareedkii 1998-99, Tottenham oo iska xaadirisay finalka tartanka 2018-2019 kadib guuldarro ay ku furteen, iyo Inter Milan oo kal ciyaareedkan 2022-2023 soo gaartay finalka kadib markii ay guuldarro kala kulmeen Bayern Munich kulankoodii furitaanka. laakiin sheekada xiisaha u leh kooxda Manchester City ayaa ah in dhammaan 3dii kooxood ee gaaray finalka tartankan kadib markii ay guuldarro ku soo bilowdeen tartankan kulankii finalka ahaa laga wada adkaaday dhammaantood, koobkana laga qaaday. haddaba daawade, caawayaa adkaan doona kooxaha Manchester City iyo Inter Milan. aragtidaada inoogu reeb qaybta hoose ee faallada.